way naga dhaga adeegeen waanay sahashadeen naf dhan oo ay ahayd inay hoos u eegaan waxay noogu dareen aflagaade iyo dagaal askartii dhakhtarkana way noo dalbadeen ku darso farmasiga dhakhtarka oo biyaha laga iibsan jiray xataa xabad biyo ah ma ay oolin waxa aan cod oohin oo dheer oo qaylo ah ku idhi markuu yaabkii iga batay xamdina musanaabayso dhakhtar miyaanu ahayn halkaad i keenteen waxa aan qaylo dheer oo oohin iyo miir la'aan ah ku idhi hadday wax noqoto idinkaan idiin haysanaa qoraalkan waxaa boggeeda Facebook soo dhigtay fanaanada caanka ah ee Nimca Degan oo kaga warantay xaalad degdeg ah oo xanuun oo ku soo booday walaasheed taas oo uu la carartay dhakhtarka weyn waxaanay Nimca Degan qoraalkani ama qormadani ay kaga faaloonaysaa dhibaatadii ka qabsatay dhakhtarka weyn iyo sida aan xilka la isaga saarin saacadu waa 2 habeenimo walaashay Xamdo inta ay koomadu ku jirtaa xamda iyadoo caafimaad qabta oo faraxsan ayaa hal mar la helay dhakhtarka weyn ayaanu ula cararnay qaybta emergency-ga ama qaybta gargaarka degdega ah madaxa ayuu xanuunkeedu ka bilaabmay qolada habeenkaasi shaqada haysay saacad ayay nala meereysanayeen anigoo Nimca Degan ah oo labadayda gacmood madaxeeda ku haya oo ay leedahay madaxa i qarxaya ayaa waxaan ku musanaabaya painkiller kumuda ama xanuun baabiye kumuda si degdeg ah sida aynu ognahay painkillertu ama xanuun baabiyuhu caawin mooye wax dhib ah ma geysato way naga dhaga adeegeen waanay sahashadeen naf dhan oo ay ahayd inay hoos u eegaan waxay noogu dareen aflagaade iyo dagaal askartii dhakhtarkana way noo dalbadeen ku darso farmasiga dhakhtarka oo biyaha laga iibsan jiray xataa xabad biyo ah ma ay oolin xamda waanu ka qaadnay waxa aanu geynay dhakhtar kale oo gaar loo leeyahay markiiba way noo bilaabeen caawimadii degdega ahayd oo uu ugu horeeyo painkiller ama xanuun baabi'iye nasiib darro dhiiggii maskaxda isagoo ku furmay ayay caawimo degdeg ah noo fidiyeen waxay noo sheegeen dhakhaatiirkii takhasuska ahayd inay xanuun bi'iyaha hadda la siiyey haddii wakhtigii saxda ahaa ay heli lahayd wax u qaban lahaayeen walow qadarka alle aan la baajin karin waxa aan qormadaydani uga jeedaa dhaleecayn iyo wacyigelin labadaba sida uu dhakhtarkeena weyn u dayacan yahay ee aanu biyo qof naftiisa uba go'i karto u oolin waliba farmasiga ganacsigu ka socdo maaha inaan biyo bilaash ah ka hadlayo in naftuba waxba la ahayn shaqaalaha ay ahayd inay ku carbisnaadaan xuquuqda uu leeyahay qofka bukaanka ah xaalad kasta oo uu ku jiro siday u caawin lahaayeen ay xil isaga saari lahaayeen iyo waxa uu xaq ugu leeyahay waxa aan ka hadlayaa waa dhakhtarkii ugu weynaa dalka ama magaalo madaxdii Somaliland dhanka kale haddaan ka faaloodo qalabka yaala iyo dayactirkiisu waa mid aad u wanaagsan halka haddaba laga dhintay waa shaqaale aan bini'aadanimada waxba laga barin siday u badan yihiin iyo mas'uuliyad darro meesha ka jirta waxaan maqli jiray dhaleecooyin badan oo bulshadu u jeediso dhakhtarka weyn aniga se habeenkaasay iigu dhacday ku darso waxa aan cod oohin oo dheer oo qaylo ah ku idhi markuu yaabkii iga batay xamdina musanaabayso ay ku dhawaaqayso dhakhtar miyaanu ahayn halkaad i keenteen waxa aan qaylo dheer oo oohin iyo miir la'aan ah idhi hadday wax noqoto idinkaan idiin haysanaa waan ku dheeraaday qalinka waxaan ku soo gabagabeeyey maamulka dhakhtarka dib ha isugu noqdaan oo waxa saxo inta ay wax hagaajinayaan inaan qof xaalad degdeg ah u baahan la geyn dhakhtarka weyn ayaan soo jeedinayaa